السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي نبوة ناكسنا خيارتنا داوانا يساي ميلك الصوت كتشوكتان عالمك رمضان مبارك كسو دوادات يوتيوب كينان بدي بري ورك عاول دين هاي نوحة كمدا وذا هذا الذي سويسرلاند تو علنت إيران إيو عسد دولة حيسان مريكان كي إيران ورك ماذا حيز haddaan intaa ku soo koobo isagoo faahfaahsan ayaa lagu soo warramayaa inay qorshaynayso tallaabooyin military oo ka dhana Iran kadib markii wadahadallo ka dhacay dalka Cumaan iyo Switzerland lagu guuldareystay in lagu gaadho heshiis rasmi ah. Wadahadalladaasi waxaa looga gol lahaa in lagu xaliyo muran ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran. dhanka kale Mareykanka ayaa bariga dhexe u diray diyaarado dagaal maraakiibta diyaaradaha xambaara Cruise nidaamyo difaac hawada ah. Ujeedada tallaabooyinkan ayaa lagu sheegay in lagu xakameeyo awoodda sii kordhaysa ee Iran isla markaana lagu qasbo inay ka tanaasusho horumarka hubka nukliyeerka ah. dhanka kale Iran ayaa si adag uga jawaabtay iyadoo ku hanjabtay inay weerari doonto saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe, inay xidhi karto marinbiyoodka istiraatijiga ah ee Strait of Hormuz. marinbiyoodkan ayaa muhiim u ah dhoofinta shidaalka caalamka. haddii la xidho, qiimaha shidaalka iyo dhaqaalaha adduunka ayaa si weyn u saameyn kara. arrintan waa mid khatar ah oo haddii dagaal toos ah dhaco saameyn ku yeelan karta caalamka oo dhan. dhanka kale wararka ka imaanaya Yurub, wadahadallada Switzerland waxay ka mid tahay dalalka militari gelinaya wadahadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran. dalalka Yurub guud ahaan waxay isku dayayaan dhexdhexaadinta sida looga hortago dagaalka ka qarxay bariga dhexe. dhanka kale Israa'iil, bisha Ramadaan, dowladda Israa'iil ayaa sheegtay inay wax ka beddeshay jadwalka gaadiidka dadweynaha si loogu fududeeyo muwaadiniinta muslimiinta ah inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. haddii tallaabadaasi si dhab ah loo fuliyo, waxay muujin kartaa ixtiraam iyo tixgelin xuquuqda diimaha ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan Israa'iil. dhanka kale xaaladda Yurub, Paris, Faransiiska waxaa ka jira mudaharaadyo la xidhiidha qiimaha nolosha oo sare u kacday. London, UK waxaa laga doodayaa xaaladda dhaqaale iyo isbeddelka canshuuraha. dhanka kale Afrika, Nigeria, sida uu sheegay wasiirka macdanta Nigeria, 37 nin ayaa ku dhintay god macdanta oo ku yaala gobolka Plateau. raggan ayaa la sheegay inay ahaayeen macdan qodayaal haysan qalab casri ah oo badbaado leh. shilkani wuxuu muujinayaa caqabadaha dhinaca badbaadada shaqaalaha ee ka jira qaar ka mid ah dalalka Afrika. dhanka kale Itoobiya iyo Somaliland, khubarada siyaasadda ee ku sugan Addis Ababa ayaa sheegay in Itoobiya aysan si fudud ugu jilicsanayn cadaadiska dibadeed, maadaama hoggaankeedu uu ku caan yahay go'aan madax bannaan oo ku salaysan danaha qaranka. wadahadallada u dhexeeya Somaliland iyo Itoobiya ayaa lagu sheegay inay ku salaysan yihiin iskaashi dhaqaale, amni, marin ganacsi iyo badeed. tani waxay muujinaysaa isbeddelka siyaasadeed ee ka socda geeska Afrika. dhanka kale wararka ka imaanaya Soomaaliya, kulanka Villa Soomaaliya, madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne Siciid Cabdilaahi Deni, madaxweyne Maxamed Islaam Madoobe waxay ku kulmeen Villa Soomaaliya. kulankaas oo loo arko mid muhiim u ah wada tashiga arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. waa mise madaxweyne. dhanka kale Somaliland iyo Israa'iil, 25 khubaro oo ka socda Somaliland ayaa u tegaya Israa'iil si ay u bartaan farsamooyinka biyaha waraabka. ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu ayaa ballan qaaday taageero dhinaca biyaha, beeraha, tiknoolajiyadda ammaanka. Somaliland waxay si weyn ugu baahan tahay xalal waara iyo biyaha ah si looga hortago abaaraha soo noqnoqonaya. dhanka kale madaxweynaha Imaaraadka Maxamuud bin Sayid Al Nahyan ayaa si rasmi ah u beeniyay war lagu faafiyay baraha bulshada oo la xiriira xaaladiisa caafimaad.
isagoo sheegay in warkaasi yahay mid been abuur ah. dhanka kale marwadii Farxiyo Fiska ninkeedii la xidhay ay oo ka hadlaysaa sida xukunkiisu u dhacay iyo sidii cadaaladda u heshay. bal waa tan laga daawada Farxiyo Fiska oo hadlaysa. وعيد السلام أمة الصومال ملك استاجورتين وأنا وفرحية أحمد عداوة فرحية فيسكا سلام قالي هاي دي سلام قارهان أمة الصومال لان خورت دد كان بقلة نمنك إيش صار وصل حتى محي شون عيان خورت كوا سبحان الله هاي بقبقت للرقد أنت إسكديسين أفكين هورت الله والله رسارة this is فيسكا horta inta waxa ugu mahad celinaa ummadda Soomaaliland ee qiimaha iyo qaayaha iyo sharafta leh ee aniga garbahayga taagnaay dhalinyarada fanaaniinta cuqaasha maxkamadda sharafta leh Soomaaliland horta sharciga ka jiro hadaa ogaa jirteen gabar inta la dilo lagu fakado laguma fakanayo Soomaaliland waa wadan sharci ka jiro ma fahamteen horta ummadda Soomaaliland aad iyo aad ugu mahad celinaa waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin xaquuqdeedina waa isiiseen waxaana dareemay in aan joogo wadan nabad ah oo wiligeey Allahayba aan jeclaa ma fahamteen aad iyo aad horta ma santihiin abaalkiina ma gudi karo xaqayga way soo dhiciseen dadkan baqbaqle oo wiliba nimanka odayaasha ee baqbaqle meelaha inta soo istaagaan ha qalada loo xiro kana loo xiro war qof aniga qof igu diri karta iyo qof igu dirtay ma jirtaan ku dhahay wuxuu geystay aan laga gudayaa this is Fiska dhabankan wiligeed iyo Allaheedan ku dhahay lama saarin gacan qofkii gacan saarana xabsi ku waaraya mid kale shaydaanka Ramadaanka la xiraa ma fahamteen wixii shaydaanka maxaa Ramadaanka horta loo xiraa qofkii Ramadaanka xabsi iska lagu xiray waa shaydaante shaydaanimo adii Ramadaan la xiray farist Ramadaan oo xabsi u hooyday dhabankan naag nin iyo naag qof taaba kartaa iska yar ma fahamteen marka daawadayaal war waxaan caawidiin hayna waa naga intaa tan iyo intaan dib u kulmayno habeenimo wanaagsan. guys share like comment subscribe please subscribe to Sal Brian Medan Sarine. Bye.